maalintan shiddadeeda haddaan alla ku badbaadin maalin fudud maaha waayo dee afkaynu ka leenahay waa maaline 50,000 sannadood bay u dhigantaa afku maynu ka leenahay waa maalin qiyaame laakiin maalintaasi xisaabta ay joogto ilaahay quraanka wuxuu leeyahay ta'ruju al-malaa'ikatu war-ruuhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sana aayad saasal uu tilmaamaya aayad kalena ilaahay wuxuu ku tilmaamaya maxay 50,000 sana mufassiriinta badba waxay dhahdaa maalintani waa 50,000 sannadood haddana 50,000 sannadood maalmaheedu maalintiiba waa 1,000 sannadood mufassiriinta badba saa yidhaahdaa ayan kaanat maalintani waa maalin ka dheer maalmaha caadiga ah maalin kumaankum sannadooda weeyaan innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiba baa ilaahay leeyahay iyagu waxay u arkayaan inay dhowdahay iyagu waxay u arkayaan maxay inay fog tahay annaguna waxaan u aragnaa baa ilaahay leeyahay maalintan inay dhowday qiyaamo waa maalin dhow baa ilaahay leeyahay laakiin bini aadamku dee marka aakhiro looga sheekeeyo wuxuu isirahaa waqtaad haysataa iyo dee qiyaamuhu baryahan ma jiro waradiga qiyaamahaku wuxuu dhacayaa maalintay naftu kaa baxdo dadka kale qiyaamahooda waxba kaama gelin adiga su-aasha iyo cadaabta iyo jannada iyo wax waliba waxay kuu bilaabmayaan maalinta naftu kaa baxdo adigu sugi maysid dadka kale inta la soo halaagayo haddaba qiyaamaha iyo dhibta jirta qiyaamaha maalinta qiyaame iyo burburka dunidan ku dhacaya iyo sida ilaahay dadka u soo bixin doono iyo xashriga iyo miisaanka iyo xisaabta iyo siraadka iyo jannada iyo naarta mawaaqif tiro badan weeyaan qiyaamaha iyo dhibta jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa in badan buu kaga warramay qof kasta oo muslim oo fahmi kara qur-aanku wuxuu sheegayaana wuxuu helayaa warkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa maalintaa ka warramaya oo xaqiiqo ka sheegaya kow ilaaha weyn baa wuxuu ku sifeeyey inay maalin weyntay maalintani alaa yadunnu ulaa'ika annahum mabcuuhuun liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waa maalin weyn baa ilaahay ku tilmaamaya yani dadku yaqiinsanayn ama malaynaynin annahum mabcuuhuun in la soo bixin doono liyowmin cadiim maalin weyn in la soo bixin doono maalintaa waxaa kaloo ilaahay ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala maalin culus haqiila inay tahay ina haaulaa'i yuxibuuna alcaajila wayadaruuna waraa'ahum yowman haqiila ilaahay wuxuu leeyay kuwan gaaleed ama waxay jecel yihiin tan degdegta badan leh adduunka waxaanay ka tegayaan baa ilaahay leeyay yowman haqiila maalin culus waxaa kaloo ilaahay maalintaa uu ku tilmaamay maalin adag inay tahay casiir fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina gayru yasiir waa maalin adag baa ilaahay yidhi oo gaalada marnaba aanu fududayn idan maalintan rabu samaawaati waalardi oo sifaynaya wuxuu leeyay waa maalin weyn waa maalin culus waa maalin adag ayaa ilaahay ku tilmaamaya subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay sifaynayaa maalintan baqaha iyo cabsida bini aadamka haysta inuu wareeri doono wax badanba mararka qaarkood aanu kala garan doonin waxaa rabbi ku tilmaamayaa ta uur kale in ilmuhu ka soo dhici doono waxaa rabbi ku tilmaamaya ta nuujinaysa inay ilmaha hilmaami doonto o ilaabi doonto ilaahay wuxuu leeya yaa ayuha annaas ittaquu rabbakum ina zalzalata saacati shay-un cadiim wardadow waa rabbigiin ka dhowrsada baa ilaahay leeyahy waayo ina zalzalata saacati shay-un cadiim qiyaama gelgelinkiisu waa wax weyn baa ilaahay yidhi yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat watadacu kullu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walakina cadaab allahi shadiid waa maalin aad arkaysa baa ilaahay leeyihi
tii nuujinaysay waxay nuujinaysay ay hilmaami doonto tii uurka lahayd uurku ay tuuri doonto dadku aad mooddo inay sakhraansan yihiin baa ilaahay leeyahy ilaahay baa wuxuu leeyahy watara annaasa sukaara waxaad arkaysaa dadka oo sukaara ah sakhraansan wamaa hum bisukaaraa ilaahay buu leeyahy mana aha waxay cabbeen dadku sakhraamay dad wax cabbay oo saa ku sakhraansan ma aha haddana waa la sakhraansan yihi oo maxaa sakhraamayey shiddat lhawl dhibta weynideeda walaakina cadaab allahi shadiid baa ilahay yidhi ilaahay cadaabkiisa ayaa adag saa daraaddeed baqe cabsi bini aadamku uu cabsanayo iyo baqaha maalintaa jooga waa kaa uu dadku sakhraamayaan waa ka uu nebi maxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ambiyadu oo dadka hormoodkooda ahaa inay ku koobmi doonaan nafsi 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 tayda bes inay ku koobmi doonaan ilaa iyo marka u dambaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la soo gaadho ana laha uu yidhaahdo waa maalin ayuu nebigu ku tilmaamayaa baqa daraaddeed kuwa dulmiga dunida ku sameeya indhahoodu aanay libiqsanin ishu iskuma qabsoonto naxdin daraaddeed isha wuu kala hayaa ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار هم ملين با إلهي ليي إنو الرب موغن يهي وحاي ظالمين تصمينيان إلهي وحلي ما موغني وحان ديبو قردقي مالين إندوها ينقاقان وانا اللي بقصنين با إلهي ليي أيانا بالبركو دا ديبو قردقي مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء والحالة يهم با إلهي ليي كوا